بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعمدا وضيال إذا لهانتين بقى كنا سود وهذا برنامج كان امتحانها إصلاح حسابتن كقيبتي سلبات هدي الله عود اللي هي إنه وحنا نقيبتن ما تسكتوا تاجد وناقض بدل لبات صدحات أفراد يشنات وهاب لنقات المشرح مسبح عبد وقلي دور الشدي مدحوينها سندي لبكون يتضبيط طبنكي qodobka labaad hadaynu dib u xasuusano wuxuu ahaa in xukuumadda Musabixi Cabdi ay la dagaalami doonto musuqmaasuqa baasan ee ka jira waxyaha kala duwan ee dawladda qofkii sameeyana uu ciqaab adag mari doono xukuumadda madaxweyne Biixi oo jirta waqti kor u dhaafay 2 sanadood ilaa iyo maanta talaabooyinka la xidhiidha musuqmaasuqa ee qaaday haba yaraatee ma jiraan cid dambi lagu soo oogay cid loo maxkamadeeyay iyo cid u xidhan midna ma jiro marka laga reebo xilli aanti dhowrka guud ee Somaliland ayada u soo jeediyeen madax ka tirsan xukuumadda sida wasiirka hore ee gaashaandhigga wasiirka warfaafinta iyo madax kaleeto balse waxa meel maray ama cadaatay in balanti madaxweyne Biixi uu la galay shacabka Somaliland ee ahayd la dagaalanka musuqmaasuqa in uu si buuxda u baalmaray oo xitaa si jilba fidsaday musuqi iyo wax isticmaalinta hay'adaha dawladda dhexdooda ka jirta ilaa uu gaaro musuq heer qoyska madaxweynuhu ay adeegsadaan awoodii dawladda qodobka saddexaad ee barnaamijka isku dul taagi doono waa ballanqaadkii ah in Somaliland uu ka difaaci doono cadow kasta meel kasta iyo goor kastaba waxa xaqiiqo in Somaliland adeegu ugu weyn ee maanta ka jira uu yahay cadaalad darro iyo kala qaybinta bulshada labadaas oo daweynteeda loo xilsaaray xukuumadda iyo madaxweyne Musabixi Cabdi dadweynaha Somaliland oo si weyn ugu dhagtaagaya go'aamada madaxweyne Biixi ka soo saaray cadaaladda iyo sinaanta bulshada ayaa la yaab iyo afkalaqaad ku tilmaamay hadal la sheegay inuu ka soo yeedhay madaxweyne Biixi hadalkaas oo ah lagaadha laga soo tabiyay inuu madaxweynuhu ugu gafay beel ka mid ah beelaha Somaliland degaa aflagaadhadaas oo ah mid aan ku habboonayn in halkan lagu xuso ayaa dad badan qabaan in ay tusaale u tahay fikirka iyo aqoonta madaxweyne Musabixi Cabdi si kasta ahaatee waxaanu ka cudur daaranaynaa in muddadii aynu xog ururinta barnaamijka ku jirnay oo aan aysan noo suuragelin in aynu soo xaqiijino talaabooyinka ama guulaha xukuumaddu ka gaadhay qodobka afraad waxa uu markale ballan qaaday madaxweyne Musabixi Cabdi xilligii doorashooyinka musharaxa u ahaa in diintan islaamka iyo dhaqankeena wanaagsan ay qiyaam toonsan ahaan doonaan waxa cadeyn kugu filan in xukuumadda Somaliland ay ka gaabisay ballanqaadka waxaana caasimadda Somaliland ay Hargeysa lagu casuumay nin ku caanbaxay inuu ka mid yahay ragga isfaraxumeeya arrintaas oo dadweynaha iyo abwaanada Somaliland si weyn uga gilgisheen xukuumaddu waxa ay kaga falcelisay soo dhaweyn abwaan Yuusuf Shaacir oo arrinkaas ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa waa dhacdooyinka inagu soo badanaya bishan August 22keedii waa tii saddexaad aan raacinayee waxa dalka lagu soo casuumay oo xarunta dhaqanku soo casuuntay nin u ololeeya in raggu isfaraxumeeyo mala eray bixin ka af Soomaali kaga habboon ma jireen dadka isku jinsiga ee isguursaday waxa ay yiraahdaan erayga isku jinsina waxba lagu asturayaa guurkuna sax ma aha erayga oo guurku wuxuu dhaxmaraa lamaane dhadig iyo laba ayaa guurku dhaxmaraa laakiin tan waxaan oran karaa waa ragga isfaraxumeeya ama dumarka isfaraxumeeya ninkaas wuxuu dhashay dalka Botswana waxa soo casuumay xarunta dhaqanka filim buu soo bandhigay dad ilaa 300 oo qof gaaraya ka soo qayb galay shaqo abuur oo bulshada Somaliland si weyn ugu baahnayd walina ugu baahan tahay ayaa ahaa ballanqaadka shanaad ee madaxweyne Musabixi iyo xukuumaddiisa sida dhabta ah isu ilowsiyeen marka laga reebo barnaamijka shaqo qaran oo ku dhawaaqistiisa si weyn bulshada u soo dhaweeyeen balse markii dambe ay kala kulmeen niyad-jab kadib markii ay soo shaabaxday in ka qayb qaadashada barnaamijka loo kala abtiriyay daawadayaal barnaamijka qaybtiisii labaad waa inaga intaasi maanta Alool TV ayaad naga daawanaysaan anigoo Xuseen Nuur Xuseen Aaji ayaan la socodsiinayay barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo amaanaal